halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban efamyada magaalooyinka qaarkood iyo barta internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa galabnimo Isniina 9 Abriil sanadka 2018 saacada Geeska Afrikada barina waa 5 galabnimo. qodobada aan barnaamij ku soo qaadan doonana waxaa kamid ah jahwareer iyo hubanti la'aan ayaa ka taagan wararka sheegaya iscasilaada gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. طبعا gudoomiyahu muddan waa soo shaqeeyay xildhibaanaduna waa ku kala qaybsanayeen qaar dhaliilay iyo qaar kale oo iyagana maxaan ku warkay gudoomiyaha inuu sii joogo. waxaan kaloon eegaynaa hadiiba ay noqoto dhab iscasilaadaasi maxaa xiga oo loo gudbi doona maxaase laga baran karaa isqabqabsiga iyo khilaafka ragaadiyay howlihii dawladda Soomaaliya. qabiir arrimaha siyaasadda ka faallooda ayaan arrimahaasi falanqayn doonaa. lacag malaayiin dollar oo boorsooyin lagu jiiday ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. qawaaniinta caalamiga iyo kuwa gudbinta lacaguhu maxay arrintan ka qabaan? barnaamijka ayaad ku maqli doontaan. Mareykanka iyo Ruushkuna hadallo adag ayay isdhaafsadeen weerarka kiimikada ah ee lagu qaaday magaalada Duume ee dalka Suuriya. Там побывали представители сирийского общества Красного полумесяца, которые пользуются очень хорошей репутацией у международных организаций, garabka midig ee xisbiga Fises ayaa guul ballaaran ka gaaray doorashooyinka guud ee dalka Hungary. ugu yaraan 100 qofna waxa lagu dilay dagaal ka dhacay Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. dhageysiga dacwad ku saabsan xadidaadda da'da madaxweynaha ayaa ka bilaabatay dalka Uganda. wararkii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka uu soo saaray Maxamed Maxamuud Cadde anigoo aadan saalamin aan idiin soo jeedinayo dunida iyo maanta. marka hore ku soo dhawaada wararka BBC-da iyo Cabdixaafid Caawil Ismaaciil. mahadsanid aadan saalamin. hay-adda caalamiga ah ee qaabilsan hubka kiimikada ayaa xaqiijisay inay raadinayaan warbixinno ku saabsan in weerar loo isticmaalay hub sun wata lagu qaaday magaalada Duume ee haystaan kooxaha fallaagadu. madaxa ururkan ayaa sheegay inuu aad uga warwarsan yahay weerarkaasi. wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in khabiiro ka tirsan milatariga Ruushku ay booqdeen goobtaasi oo aanay ku arag wax muujinaya in sun la isticmaalay. xogaayihii hore ee horumarinta Britain ayaa sheegtay in xaaladda Suuriya ay marka ka dambaysa ka sii tarayso iyadoo arrimahaasi ka hadlaysana waxa ay tidhi waxay la tahay inaanay wax weyn isbedelin markaad eegto golaha amniga oo galabta ka shiraya arrinkan hubka kiimikada ah ee lagu isticmaalay Suuriya. waxaad moodaa in dal waliba tii lagu yaqaanay inuu ay kharisan doonaan oo ay runtii noqon doonto dood la isku celceliyo oo aan waxba halkaa ka soo baxay aanay jirin. weli waxaad moodaa kiimikada chlorine inaynu iyada hore u aragnayba in la isticmaalay oo aanay wax ku jirin shaki. We have not got any further forward. isla Suuriya iyo Ruushka oo taageera ayaa ku eedeeyay in ciidamada cirka Israa'iil ay ka dambeeyeen weeraro gantaal ah oo lagu qaaday xero ay leeyihiin ciidamada Suuriya ee cirka oo ay dhowr qof ku dhinteen. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ay garaaceen xerada milatariga cirka ee T4 habeennimadii xalay iyagoo aan gudaha u soo gelin hawada Suuriya. dowladda Israa'iil kama ay hadal eedayntani. Sergey Lavrov wasiirka difaaca Ruushku waxa uu cambaareeyay weerarkan. duqaynta waa in la baaro. dabcan tani waa tallaabo halis ah. waxaan rajaynayaa in arrintan ugu yaraan ay fahmayaan dadka askarta ah Mareykanka iyo kuwa xulafada la ah. kooxda ilaalaysa xaaladda Suuriya ayaa sheegtay inay 14 dagaalyahan oo ay ku jiraan saraakiil ciidanka ka tirsan ee ay ku dhinteen weerarkaasi. suuqa dhaqaalaha ee Ruushka ayaa si xooga hoos ugu dhacay kadib cunaqabatayntii ugu dambeysay ee uu Mareykanku ku soo rogay. labada asaami ee ugu weyn magaalada Moscow ayaa 10% hoos u dhacay. shirkadda Aluminium Rusal ayaa ka mid ah suuqyada ay saamaynta weyn gaadhay iyagoo 50% qiimahoodu hoos u dhacay.
cunaqabatayntan ayaa loola gol leeyahay ganacsato iyo saraakiil ku xidhan madaxweyne putin. madaxweynaha dalka nigeria moxamedu buxaari ayaa shaaciyey inuu mar labaad xilka madaxweynaha isu soo sharaxayo. fariin qoraal ah oo lagu reebay barta twitterka madaxtooyada ayaa lagu qoray inuu master buxaari diyaar u yahay inuu mar kale iska soo sharaxo xisbiga a p c doorashada dhacaysa sannadka 2019. sanadkii aynu soo dhaafnay master buxaari wakhti badan ayaa waxa uu ku sugnaa dalkan britain xaalado caafimaad awgeed. halkaad dhegaystayaal warkaasi kala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee b b c london. faransiiska ayaa sacuudiga ka caawinaya goob lagu qabto fanka iyadoo markii ugu horraysay filimaan sacuudi ah lagu daawanayo bandhigga kan. wararkan ayaa soo baxaya iyada oo wiilka sugaya dhaxalka sacuudiga uu ku sugan yahay dalka faransiiska. tanina waxa ay muujinaysaa sida uu ugu firfircoon yahay inuu dalkiisa u furfuro dhaqannada iyo fanka. waxaa la filayaa inuu faransiiska la saxeexdo heshiis ay baariis waqooyiga sacuudiga kaga samaynayso madxaf dusha ka furan. deegaankaasi waxaa ku yaala magaalada maada in saalex oo ah magaalo ka samaysa dhagax xardhan oo ay dhiseen dadkii la odhan jiray nabatiniyistu oo hore oo ay u dhisay magaalada betra oo ah goobta keliya ee ururka yunesko diiwaan geliye ee ku taalla sacuudiga. ugu dambayntiina magaalada bangu ee caasimadda jamhuuriyadda bartamaha afrika ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay iyo koox dabley ah ayaa iska horimaad ku dhex dhacay waxaana la xaqiijiyey dad badan oo halkaasi ku dhintay. axaddii ayaa ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay iyo ciidamada ammaanka ee dalku ay howlgallo milatari ku qaadeen kooxo hubaysan deegaanada ay muslimiintu ku badan tahay ee magaaladaasi. rabshado ayaa ka jiray halkaasi toddobaadyadii ugu dambeeyey jamhuuriyadda bartamaha afrika waxaana ka jiray dagaalo tan iyo intii ay ciidamo u badan muslimiin ay xukunka ka rideen madaxweyne francos bosise 5 sannadood ka hor. intaasina waxaa ku eg warkii dunida aan idinku celiyo aadan maxamed cabdi saalamiin iyo qaybaha barnaamijka inooga hadhay. mahadsanid cabdixaafid cawil ismaaciil. halkani waa london. aan ku bilownay jahwareer iyo hubantila'aan ayaa waxa ay ka jirtaa wararka saakay soo baxay ee sheegaya inuu iscasilay guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari, iyadoo arrintan markii ugu horraysay uu ku dhawaaqay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalkaasi cabdiweli sheekh ibraahim muuday oo saakay fadhi qaar ka mid a xildhibaanada baarlamanka gaar ahaana garabkii waday mooshinka ay ku yeesheen magaalada muqdisho. waxaana halkaasi uu ka aqriyay qoraal sida laga soo xigtay xildhibaanadii ku sugnaa fadhigaasi ay sheegeen in uu soo qoray guddoomiye jawaari oo ahaa inuu iscasilay. ilaa iyo hadda ma jirto caddayn rasmi ah oo ay b b c-du u aragtay oo muujinaysa iscasilaadaasi mister jawaari, mana jirto wax rasmi ah oo isaga iyo xafiiskiisa ka soo baxay oo ku aadan wararkaasi iscasilaadda. haddaba wararkii ugu dambeeyey arrimahaasi la xiriira waxaa si toosa haatan qadka ugu jira wariyaha b b c-da magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadan. ibraahim, maxaa markaasi soo baxay ilaa iyo haatan? aadan, sidaad sheegtay iscasilaadda la sheegay in uu sameeyey guddoomiye jawaari waxa ay soo baxday saaka aroortii hore, waxaana ay ka soo baxday kadib kulan dheer oo saacado badan qaatay oo saqdii dhexe xalay bilowday oo waa berigiisa ka soo gaaray oo dhex maray madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo guddoomiye maxamed sheekh cusmaan jawaari, iyadoo markii dambena ku-xigeenadiisa iyo habdhowraha baarlamanku ay ku biireen. xildhibaanada ku dhowdhow guddoomiye jawaari waxay b b c-da u sheegeen in guddoomiyuhu aqbalay in uu iscasilo, ha yeeshee aanay hadda ahayn oo ay qaadanayso wakti ama saacado ama maalmo. dhanka kale xildhibaanada kale ee ka soo horjeeday guddoomiye jawaari ee mooshinka ka waday waxaa u sheegay in uu iscasilay guddoomiye jawaari guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka cabdiweli ibraahim sheekh muuday saaka mar uu kula kulmay guriga ummadda oo ay fadhiyeen oo ay doonayeen in ay kulan la sheegay in looga doodaya mooshinkaasi ay ku qabtaan. ha yeeshee markii dambe intuu muuday u yimid u sheegay in guddoomiyuhu iscasilay, sidaa daraaddeedna ay tahay inay iska kala tagaan. xildhibaanadii mooshinka ka keenay guddoomiye jawaari ayaa oraahdaas si weyn u soo dhoweeyey, laakiin ilaa hadda
cod gudoomiyuhu uu duubay ama muuqaal ama qoraal uu isagu u saxiixay oo warbaahintu ay hayso aadan ma jirto. haddaba si aan wax badan uga ogaano kulankii Shaaka Muudey ka sheegay in Jawaari uu iscasilay waxaan la kulanay xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo ka mid ah xildhibaanadii mooshinka ka waday saakana joogay kulankii uu gudoomiyay Muudey la qaatay xildhibaanada isaga taageersan. waxaana weydiiyey wixii uu Saaka Muudey u sheegay. saaka kulan aan lahayn oo ay ahayd in looga doodo mooshinkii gudoomiyaha ka yaalay, laakiin waxaa noo yimid gudoomiye ku-xigeenka koowaad Cabdiweli Muudey wuxuuna noo sheegay in arintii mooshinkii ay ka soo hormartay in gudoomiyihii ay u muuqatay inuu maareeyo arintaas oo isaga tanaasul sameeyo. marka warqad uu soo qoray buu noo akhriyey. warqadda uu soo qoray nuxurkeeda haddii aad noo sheegto maxaa ka mid ah ereyadii ku qornaa? nuxurka uun saan u qaatay amaan u maqlahayay inuu isagoo tixgelinaya codsiga madaxweynaha iyo malaha xildhibaanada dalbanaya inuu xilka ka dego in uu tanaasulay oo iscasilay. waxaa kaleeto uu noo sheegay warqadaas isagana inuu saxiixay gudoomiye ku-xigeenkiisii Mahad labaad iyo habdhowrihii baarlamaanka Nuuxna ay wax ka saxiixeen. Arbacadana inuu baarlamaanka la hadli doono ayaa lanoo sheegay. gudoomiye ku-xigeenka koowaad markii warqadda akhrinayay marna ma ku jirta ereyga iscasilaad gudoomiyuhu inuu iscasilay? waxaa weeyaan iscasilaad iyo casilaad say u dhigantaba ereyga waa maqlahayay. ujeeddadaaba waxaa weeyaan iscasilaad inay ahayd baan filay ujeeddada madaxweyneha ku socotay ujeeddo iscasilaad buu yidhi. marka arbacada marka waxay tahay inuu gudoomiyuhu si rasmiya intuu yimaado golaha uu sheegay inuu shaqada ka tegay. saas baa lanoo sheegay. dabcan gudoomiyuhu muddin waa soo shaqeeyey, xildhibaanaduna waa ay ku kala qaybsanaayeen, qaar dhaliilay oo dalbanhayay oo badan iyo qaar kale oo iyagana maxaan ku raahdaa iyagoo duruufo badan mindha tixgelinaya u arkaya gudoomiyihii inuu sii joogo. marka arbacadu wuxuu u imaanayaa saan u fahamnay inuu macasalaameeyo, khudban uu jeediyo, wixii tale iyo tusaale iyo uu meesha ka jeediyey. waxaad ka mid ahayd xildhibaanadii riixayay mooshinka ahaa inuu shaqada ka tago gudoomiye Jawaari. sheekadan cusub ee hadda soo korodhay maxay kaga dhigan tahay? waxaa weeye hadda annagu barnaamijkan waxaan kusoo jirnay ilaa November aan kusoo jirnay. dhaliilaha aan qabnayna waxay ahaayeen uun qof dhan ma jira waxyaalo badan oo hawsha baarlamaanka la xiriirta keli ah ayaan ku dhaliilaynay. marka waxay u dhigantaa intaan soo istaagno media hortiisii mid aan u sheegno dhaliilihii aan gudoomiyaha ku dhaliilaynay. weligay waa ka gaargaarsanaynay maan rabin odayaho way arag oo aqoon laho xushmo badan naga mudan weeye. marka waxay noo tahay haddaysaan ku dhammaato waxay noo tahay sharaf inaan sii gaarsanin. isagana dabcan waxay u tahay cizi iyo karaam iyo ay u noqonaysaa. marka aad baan u soo dhawaynaynaa wax la rabay wey. halkan xaggee looga dhaqaaqayaa? maxaa xiga? halkan sida nidaamka uu yahay muddo 15 maalmood ah in ciddii doonaysa kambeynkeeda samaysato bay gudoomiye in lagu doorto way 15 maalmood gudahood sida noo qoran. marka kolley waxaad moodaa in dad badan ay raajidoodii ama CV-gooda soo gudbin doonaan u malaynayaa. loolan adag inuu dhaca ayaa dhici karta. sidaad ka warqabto intuu khilaafkani jiray dhowrkii toddobaad ee ugu dambeeyey saameyn xoog looga tegay dowladda oo howlo badan oo dowladdu lahayd baa istaagay. haddii ay sheekadu sidan ku dhammaato khilaafkii iyo isdaba wareeggii ma dhammaanaya? qayb ahaan waa dhammaanaya, laakiin khilaaf keliya ma ahaynina dad iska soo horjeeda oo loolan siyaasadeed oo awalba soo jiray arrintan ka horba soo jiray ayay ku lug leedahay. laakiin qayb ahaan waa uu maxaan ku rahdaa istaaghaya. dabcan gurubyada kaleeto oo ka soo horjeedo ama qolo hore dalka u xukumaysay ha ahaato ama kuwa hadda doonaya oo tartamay ha ahaadaane waxa weeyaan waa uu sii jiraya. laakiin wejiga hadda ay lahayd waa uu soo afjarmayaan u malaynaya. kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Shariif oo u waramayay wariyaha BBC-da magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan. haddaba si aan faahfaahin dheeraada u ogaano iyo xaaladdu halka ay ku dambayn doonto ayaa waxaa haatan qadka si toosa ugu jira agaasimaha hay-adda Heritage Cabdirashiid Xanshi. Cabdirashiid waa mahadsantahay marka hore, soo dhawow. marka xiga wararka iscasilaada ah gudoomiye ku-xigeenku uu ku dhawaaqay gudoomiyihiina aan wax wara laga haynin, maxaa lagu fasiri karaa? waxaan isleeyahay arinta iscasilaada gudoomiye Jawaari inay u eg tahay arrin run ah, sababtoo ah dadkii asaga la jirayna waa noo xaqiijiyeen, dowladdii iyo wasiirada qaar aan wareysanayna way noo xaqiijiyeen. ilaa haddana inuusan hadlin laftigeeda waxay ka dhigan tahay inaan arrintaas aysa maaragtay ka daba tegin haddii arrin laga fidiyey ay ahaan lahayd. marka waxaan isleeyahay iscasilaadaas waxaa looga talageli karaa mid u eg xaqiiqo
dee haddii siyaasiyiintu hadday rabaan waa isbedelaana hadduu isbedelo ama xogta qeyb aan hayno qeyb naga dhiman tahayna waa la ogaan doonaa kolba oo dee gudoomiyihii waa joogaa. maxaad is leedahay go-aankaasi waa uu u qaatay haddiiba la xaqiijiyo? gudoomiyuhu runtii horta bil bay dowladda hortaagnaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda iyo baarlamaanka in badan oo ka mid ah iyo xaafadii uu kasoo jeeday xildhibaano u badan baa bil runtii si adag oo maaragtay aan waxba loola harin u hortaagnaa oo kursiga inay uga xayuubiyaan rabay. marka bil buuba runtii celceliyey waana nin dee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu aan dhalan baa dhici karta 60kii inuu baarlamaanka ka shaqeynayay oo maaragtay sidaan qiyaasayo ama aan u malinayo aan warkaas aan hayo. marka waa nin da-weyn oo khabiira wax kastana waa la isla soo dhaafay qayladhaan iyo ciidan meesha gala iyo adduunkiiyo soo fargeliya. waxaa harsanayd waxaa weeye xildhibaanadu markay baarlamaanka isku tagaan inay kuraasta isla dhacaan. marka waa nin da ah weeye oo 25 ka weyn inuu is yiri marka sharafta ka raac kolba hadda ninka Soomaaliya gudoomiye u ah ama madaxweyne u ah ama ra'iisul wasaare u ah ama wasiir u ahna shaqo hadda ay ku raaxaystaan ma hayaan, shaqo dib badan bay hayaan. marka inuu ka xaragooday bay u badan tahay oo arkay inuu inta ka badan celcelin karin wixii ka dambeeyana ay noqon karto ceeb in loo tago. haddiiba ay dhacdo markaasi in iscasilaadaasi ay dhab noqoto isagu si rasmi ugu dhawaaqo ma soo afjari kartaa ayaa isleedahay khilaafka baarlamanka ee kala qaybsan mase laga yaabaa in iscasilaadiisa dad kale ay daba galaan? runtii horta siyaasadda guud ahaan isriixriix iyo ishardan kama dhammaato sida xildhibaankii hadda hadlay Shariif u sheegay. haddase runtii hab khariban oo foolxumo ahaa baa laga badbaaday haddii iscasilaadu ay soo tarto. marka hadda waxaa la gelayaa baab kalaa la gelayaa oo kursigii oo lagu tartamaya intii wada socotay asaga ridaysay baa dhici karta inay dhowr qof kursigii rabaan. taas waxaa dhici karta dadkii isku jaalka ahaa inay jaalal kale kala galaan oo khaanado kale la kala galo. guud ahaanna dowladdu annaga guud ahaan iyo dhegeystayaashaba xog badan baa naga maqan oo wixii lagu heshiiyey iyo sababta keentay isagoo muddo dheer maaragtay geed dheer iyo geed gaaban buu u fuulay inuu kursigiisa haysto oo kursi weyn oo ninka labaad ee dalku ahaa. barqaa marka in laga dareershay waxaa dhici karta in isafgaradyo badan jiraan oo midnimo in loo gudbo dowladda sanadaha u haray oo kooban sidii loo shaqeyn lahaa in lagu heshiiyey. waxaa dhici karta dowladdu inay dardartay oo ka adkaatay oo ay dhici karto inay wadadaas iyadoo ay istirahdo gacan baad hesheen iyo gulba hesheen ay kusoo socdaan. marka waxaan u baahannahay inaan xog badan helo si loo ogaado meesha loo socdo dowladda iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo hadda loolankan iyo isharintan hadda ay guusha ku raacday bayna hadda banoonigu la jiraa oo waxaa moodaa isaga inuu ka doortay inuu ka dhex baxo isqabqabsigaas oo uu saaxada baneeyey. marka hadda banooniguna iyagaa haysta xog badna waa naga maqan tahay oo xogtu inay soo tartaan laga maarmi doono. ugu dambeyntii iscasilaadani ma isleedahay saameyn way ku yeelan kartaa golaha wasiirada? dee horta golaha wasiiradu dagaal xildhibaano qaar badan oo ka mid ana rididda gudoomiyaha safka horey ka ahaayeen. waxaan u malinayaa macnaha in halkaas duruus ay ku jirto in laga qaato. guud ahaanna dastuurka lagu wareeray iyo xeer hoosaadkana laftigoodana arrimaha as leeyahay waa laga kororsan karaa oo maaragtay waxyaabo badan baa la isku diidanaa. cidda shaqada sii haynaysa waa la isku diidanaa. asiga anaa shaqada sii hayna ayuu leeyahay. muudey baa yiri anaa kale. gacantaag iyo waxaa la isku qabsaday, cod sanduuqaa la isku qabsaday. maxaa la yidhahdaa waxyaabo badan baa la isku qabsaday. marka duruuso badan baa ku jira oo golaha wasiirada kusoo noqonaya gudoomiyihii iyo baarlamaankii iyagaa ahayd in lala xisaabtamo. iyagoo xisaabtanka galay kuna guuleystay laftigeeda duruus baa ku jirta. marka waxaan is leeyahay in la hakad la isgeliyo oo dib loo neefsado oo laga fakaro meesha halkan laga aadi lahaa hay-adaha dhan ama madaxweynaha ama golaha wasiirada ama baarlamaanka laftigiisa iyo guud ahaan bulshada rayidka iyo shacabka dadka Soomaalida oo dhan duruus baa ugu jirta wixii meesha ka dhacay iyo maxsuulka. siyaasaduna waa iska gadgadoontahay. waxaa dhici karta intii hadda isla riday inay kursigaas isku qabsan doonto oo anaa raba iyo anaa raba ay soo bixi karto. waana siyaasadda wax lagu yaqaano weeye oo hadda dib waan ugu arko taasna. aad baa umahadsan tahay. kaasi waxa uu ahaa agaasimaha hay-adda Heritage Cabdirashiid Xaashi oo qadka telefoonka igu waramaysi toosa. Cabdirashiid baa umahadsan tahay. dhinaca Facebook haddii aanu eegnana dadka iyo dhegeystayaasha kasoo dhiibtay aragtidooda qodobkan waxaa ka mid ah Cabdirashiid Maxamed Cumar oo isagu jooga magaalada Boorama. waxa uu leeyahay xaaladda murugsan iyo wararka iskhilaafsan ee ka soo baxaya baarlamanka Soomaaliya waan ka xumahay. waxaana habboon in haddii Jawaari iscasilay afkiisa uu ku hadlo ee aanan dad kale aanay ka hadal.
maxamed amiin ibraahim ayaa isaguna waxa uu leeyahay run ahaantii iscasilaadda guddoomiye jawaari haddii ay dhab noqoto waxaan u arkaa inaanay xal u noqonaynin khilaafka cakiran ee baarlamanka baryahan dambe gilgilay waayo buu leeyahay xildhibaanadu weli waa kuwo kala qaybsan balse waxaa habboon in xildhibaanadu ay ka fikiraan ajendayaasha dalka horyaalla halkaad naga dhegaysanaysaanna waa london waa hagaag warar kala duwan oo caalamka ah oo gaar ahaana suuriya oo hadalla kulkulul ay isdhaafsadeen ruushka iyo maraykanku weerarkaasi la sheegay in loo isticmaalay hubka kimikada ayaa inoo soo socda balse aan weli kusii soconno wararka soomaalida lacag malaayiin doolar ah oo sida la sheegay lagu siday diyaarad dalka imaaraadka carabta ka timid ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee caalamiga ee magaalada muqdisho lacagtaas oo sida wararku ay sheegayaan lagu siday boorsooyin ayaa waxaa markaasi la wareegay mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya kuwaasi oo sheegay in ay baaritaan ku samayn doonaan safaaradda imaaraadka carabta ee magaalada muqdisho waxa ay ka gaabsatay in ay wax ka sheegaan lacagtaasi oo la sheegay in ay ku socotay haddaba qaanuunka caalamiga ah muxuu ka qabaa in lacag cadadaasi la eg la isugu gudbiyo waddan ka waddan sideese ayay u shaqeeyaan lacagtaasi oo kale haddii markaasi la kala gudbinayo oo qaanuun ahaan maxaa loo baahan yahay arrimahaasi waxaa inooga warramaya cabdi cali daakir oo ah aqoon-yahan dhaqaalaha iyo nidaamka bangiyada bartay stuudiyaha ayuu ila fadhiyaa daakir aad baad mahadsan tahay marka lacag noocaasiya la gudbinayo maxaa horta loo baahan yahay qaanuun ahaan runtii marka hore caalamka ama wadamada dunida ka jira nidaamka dawliga ah maaragtay sida uu u shaqeeyo ama sida maaragtay sharciyada adduunka uu ku tusayo oo maaragtay United Nationka la marayo waxa weeye in la ilaaliyo oo laga duulo marka hore wax kasta oo khatar ah ama corruption ah musuqmaasuqa in laga fogeeyo marka waxay ku caddahay oo la wada arkayaa lacag inay wadan kale hadday aadayso inay marto central bank inuu u gudbiyo central bank kale si looga ilaaliyo caalamka oo dhan musuq maasuqa maaragtay ka taagan lacagayowga laysku gudbinayo waana arrimaha caalamka oo dhan uu ku heshiisan yahay waqtiga xaadirka ah in laga ilaaliyo dunida oo dhan lacag maaragtay cad oo laysku gudbinayo dhinaca kale haddaynu eegno sharciyada horyaalla maaragtay bangiyada gudahoodu ay ku shaqeeyaan waxa weeye waxa ku cad hanaanka bangiga ama monetary policyga siyaasadda lacagta in lacag kasta oo hard currency ah oo wadanka soo gelaysa lacag adag inay maaragtay central bankiga ay gasho central bankigana ay ka baxdo marka waxaasoo dhan haddaad eegto lacagta gashay hadda xamar la arkayo waa wax ka soo horjeeda sharciyada caalamka lacagtan waxaa waday diblomaasiyiin oo dalka imaaraadka ayaa iska lahaa marka in diblomaasiyiintu ay lacag intaa laga qaadaan iyada qaanuun ahaan marka lacagahaasi xadadiga intaas leeg la qaadayo xagee bay ka soo gelaysaa runtii ma banaana si clear ah in loo fahmaa fiican ninka diblomaasiga ah dhinacu doonaha ka socdo kolley dhowr qof baa u shaqeeya sifaaradda dhowrkaa qof xasaanadooda kuma cadda lacag kaash ah oo waddan lagu burburin karo ama dhaawici karta securityga dalka inay qaadaan waayo caalamku wuxuu saxeexay promotion economic stability oo ah in la ilaaliyo xasiloonida dhaqaalaha wadan kasta wax kasta oo khatar ku ana wadamada UN-tu dhinaca kale sharciyada u yaalla way saxeexeen marka waa arrimo lala yaabo oo maaragtay dhacayay oo soo noqnoqonaya waxaan xasuustaa xilligii uu ahaa prime ministerka Farmaajo in sidaasoo kale xamar ay u gashay lacag aan jeclaa inay ahayd $20 million oo loo waday qolooyinkii wax qarxinayay lagu sheegay dan la qabtay xilligaa iyada marka waxaynu oran karnaaba hadda arrinta taagan waa arrinaynu oran karno dowladda iyo ciddii qabatayba sharaf weyn bay ku leeyihin waayahay lacagtii hadda dowladda ayaa qabatay qaanuun ahaan iyo aqoontaada adoo fiirinaya maxaa la gudboon xagee bay lacagtaasi ku dambaynaysa ayaa isleedahay runtii waxaa aad iyo aad marka hore shacabka dhegaysanayo dhan aan gaarsiinaya inay muuqato in xukuumadda jirtaa ay wax maaragtay tallaabo ay qaadayso dalka aynu joogno ingiriisku ma ogola haddii aad hadda bangi tagto anoo ka shaqeeya bangiga ugu weyn oo Barclays waqtiga xaadirka ah $10,000 haddaad geyso waxaa la rabaa inaad dhiibto xaggay ka timi meeshay ka soo gashay because dunidu sidii hore maaha waa tii xilliyadii argagixisada iyo waxaan yimaadeenna sharciyadan la adkeeyey marka lacagta hadda bangiga gashay waxaan ugu
hambalyeynaya marka hore dowladda oo dhan waana arin aan oran karo waayo dowladdu maxay ku samayn doontaa marka ma bixi karto lacagta waxa weeye waddanku qasan yahay saan qabo mooshinaa hor yaalla badan waxa weeye lacagtaasi in la hakiyo la baadho waxa weeye siday ku soo gashay investigation badan midda kale waxaa aad iyo aad loola yaabaa institutionadii jiray ee khatarta ilaalinayay hadday tahay odhadku inuu waddanka ka maqan yahay oo micnaheedu uu yahay inay muuqato economically we are failed states maaragtay mahadsanidkaasi waxa uu ahaa cabdi cali daakir oo ah aqoon-yahan cilmiga dhaqaalaha bartay oo weliba aad ugu takhasusay dhinaca bangiyada oo stuudiyaha iigu warramaya halkaad naga dhegaysanaysaanna waa London. waa hagaag hay-adda ilaalinta hubka kiimikada ah ayaa waxa ay sheegtay inay ururinayso macluumaadka la xiriira in weerar la tuhunsan yahay loo isticmaalay in hubka kiimikada ah lagu weeraray oo loo isticmaalay magaalada ay mucaaradku haystaan ee Duuma. madaxa hay-addaas ayaa waxa uu muujiyey dareen cara leh oo dhacdadaasi ku saabsan. jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa lagu wadaa in ay ka wada hadlaan weerarkaasi maanta gelinka dambe. afayeen u hadlay dowladda Jarmalka oo lagu magacaabay Stephen Siebert ayaa waxa uu sheegay in isticmaalka hubka kiimikada ah ee la isticmaalay ay tahay wax aan la aqbali karin oo madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assadna xaqiiqdii markaasi uu qaaday weerarkaasi. dowladdu si weyn waxay u cambaaraynaysaa isticmaalkan cusub ee gaastan sunta ah. dadka markaasi suntan gaaska ah ku isticmaalaya duqays dad rayida ama goobaha caafimaadka waa in lala xisaabtamaa. isticmaalka gaastan sunta ihi fartu waxay ku gudan tahay rajiimka Asad inuu mas'uul ka yahay. haddaba waxaa stuudiyaha la fadhiya maxamed maxamuud cadde oo wararka umuurtaasi ku gadaaman si weyn u soo aqriyo isha u soo mariyay. maxamed, xukuumadda Suuriya iyo dowladaha taageera waxay ku adkaysanayaan in weerarkan ugu dambeeyey ee hadda waddanka Suuriya ka dhacay inay Israa'iil ka dambeysay. wasiirka difaaca ee dalka Ruushka ayaa sheegaya 2 diyaaradood laga leeyahay waddanka Ruushka inay duqeeyeen saldhigga ciidamada cirka ee loo yaqaano afar. waxaa sidoo kale cad in dowladda Mareykanka ayayna beenaysay inay mas-uul ka tahay weerarkaasi. Israa'iilna dabcan arrimaha noocan oo kale xasaasiga ah kama hadasho. waxaana muuqata nin arrimaha siyaasadda taxliiliya oo Mareykan ah oo ka tirsan kooxda daraasaadka ammaanka oo lagu magacaabo Jim Hansen ayaa isna arrintan duqeynta ka hadlay. wuxuuna yidhi weerarada xagga cirka ah waa in lagu sameeyaa baaritaan. dabcan waa arrin aad khatar u ah. waxaan rajaynayaa ugu dambayn inay taasi fahmi doonaan ciidamada Maraykanka iyo kuwa isbahaysiga la'ah. kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ruushka Lavrov oo asagana lafirkiisa ka hadlay arrintaas. asagoo hadalkiisa sii wada waxa uu yidhi wali in weerar kiimika lagu mataqaanaa eedeeyo waddanka Suuriya waa arrin degdeg ah. hadalkiisana waxaa ka mid ah waxaa jiray sadcaallo ay sameeyeen khubarada ka tirsan ciidankayaga iyo wakiillo ka socday ururka bisha cas ee Suuriya kuwaasi oo samcad ku leh ururada caalamiga ah oo ay ka mid yihiin qaramada midoobay iyo laanqayrta cas. mana helin wax caddaymo ah oo muujinaya in sunta kaloriinka ama wax kiimika ah loo adeegsaday dad shacab ah oo nabad ku sugan. galabta waxaa la filayaa qaramada midoobe gaar ahaan golaha ammaanka ee qaramada midoobe inay 2 kulan ka yeeshaan arrintan la sheegay in Suuriya sun lagu isticmaalay. kulanka koowaad waxaa soo abaabulay dalka Ruushka waxaana uu dhacayaa waqti hadda aan fogeyn. kulanka labaadna caawa ayuu dhici doonaa marka waddanka Mareykanka hadda waa beriga u tahay markii la gaaro barqadii meelaha. waxaana cad in Mareykanka iyo Ruushka labadoodu isku khilaafsan yihiin wixii ka dhacaya waddanka Suuriya iyo aaraahda ay kala qabaan. waxaana muuqata in arrintu ay aad iyo aad u miraqsan tahay. mahadsanid maxamed maxamuud cadde. garabka midig ee xisbiga Fises ayaa waxa uu ku guulaystay guul ballaaran doorashooyinka guud ee dalka Hungary iyadoo tirinta ay ugu yaraan la dhammaystiray ay markaasi uu helay 3 meelood oo 2 aqlabiyadda baarlamanka. cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo jeedinay wararkaasi.
ra-iisul wasaare victor orban ayaa si weyn ugu guulaystay doorashadaasi inkasta oo weli la wado tirinta codadka. xisbigiisa midigta fog fides ayaa marka 3 loo qaybiyo kuraasida baarlamanka 2 qaybood ku guulaystay, tan oo u dhiganta 48% codka. taageerayaashiisa ayaa lulayay calamo iyagoo ku dhawaaqaya halkudhigyo dhiirigelin ah. gabadhani waxaa iyadu dhiibanaysaa dareenkeeda. dadka magaalo madaxda ku nooli kuma aysan faraxsanayn natiijada. xukuumaddu waxay ku guulaysatay ololihii isnacaybka. quluubta dadka ayay nacaybku abuureen, waana arrin aad u murugo badan. ra-iisul wasaare victor orban ayaa isagoo la hadlaya taageerayaashiisa waxa uu sheegay inay guushani ka dhigan tahay difaacidda iyo ilaalinta ammaanka dalkaasi hungari. hungari guul weyn ayay hesheen maanta. marka hore waxaan u mahad celinayaa dadkii codeeyey. waa ku mahadsantihiin ka qaybgalka iyo sida weyn ee loo soo baxay ee shakigii meesha ka saartay. go'aanada haddaynu u leexanno saaxiibadayow, dagaalkii weynaa waynu soo dhaafnay. waxay ahayd guul muhiima. waxaynu haysannaa fursad aynu isa siinay oo ah in la difaaco hungari. aad buu mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil. bal markana sheeko ka duwan kuwii hore, waxaa markaasi ay tahay aabe wiilkiisa xabsiga ku hayay muddo 20 sano ah. mawlid ayaa noo haya. aadanow, dalkaasi jabaan ayaa arrintani ka dhacday. nin 73 sano jira ayaa looga shakisan yahay in wiilkiisa uu ku dhex xiray goob gurigiisa uu ka dhisay, halkaasna wiilkiisa uu ku hayay muddo 20 sano ah. yoshina yamasaki ayaa sheegay in wiilkiisa oo hadda jira 42 sano halkaasi uu ku xirxiray, sababtuna ay tahay in uu dhimarka ka xanuunsanaa, marka qaarna uu dagaalami jiray, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta ay soo xigatay warbaahinta dowladda ee NHK. goobta lagu hayay wiilkaasi oo guriga aabbihiisa ku dhegan ayaa dhirarkeedu waxa uu dhammaa 1 mitir, ballaceeduna waxa uu ahaa 2 mitir. waxayna arrintani ka dhacday magaalada Sande ee dalkaasi Jabaan. wiilka ayuu dhabarka ka qalloocsamay, waxaana gacanta ku haya oo baxnaaninaysa dowladda waddankaasi. warbaahinta gudaha ayaa ku warramaysa in ay dowladdu wiilkaasi ku baxnaaninayso galbeedka Jabaan tan iyo bishii January, iyadoo arrintan ay tahay arrin la yaab leh oo si weyn warbaahinta waddankaasina ay aadanu u hadal hayso. mahadsanid mawliid. saacadda istuudiyaha afrikada bari ayaa waxa ay daqiiqda dhaaftay 5:00 galabnimo. waa xilligaad nooga barateen mar kale inaan idin dulmarno qodobadii wararka caalamka ugu doorka roonaa, bal aan ka codsaday cabdixaafid cawil ismaaciil. hay-adda caalamiga ah ee qaabilsan hubka kiimikada ah ayaa xaqiijisay inay raadinayaan warbixinno ku saabsan in weerar loo isticmaalay hub sun wata lagu qaaday magaalada aduuma ee haystaan kooxaha fallaagadu. madaxa ururkan ayaa waxa uu sheegay inuu aad uga warwarsan yahay weerarkaasi. wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrovna waxa uu sheegay in khabiiro ka tirsan militariga ruushku ay booqdeen goobtaasi oo aanay ku arag wax muujinaya amaba tilmaamaya in sun la isticmaalay. isla suuriya, ruushka iyo suuriya uu caawinayo ayaa waxa ay ku eedeeyeen inay ciidamada cirka ee israa'iil ay ka dambeeyeen weeraro gantaal ah oo lagu qaaday xero ay leeyihiin ciidamada cirka suuriya oo ay dhowr qof ku dhinteen. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay inay diyaaradaha dagaalka ee israa'iil ay garaaceen xerada militariga cirka ee loo yaqaano Ta-4 habeennimadii xalay, iyaga oo aan gudaha u soo gelin hawada suuriya. dowladda israa'iil kama ay jawaabin eedayntaasi. suuqa dhaqaalaha ee ruushka ayaa si xoog ah hoos ugu dhacay kadib cunaqabatayntii ugu dambaysay ee uu maraykanku ku soo rogay. labada asaami ee ugu waaweyn magaalada Moscow ayaa 10% hoos u dhacay. shirkadda aluminium Rusal ayaa ka mid ah suuqa ay saamaynta weyni gaadhay, iyaga oo 50% qiimahooda hoos u dhacay. cunaqabatayntan ayaa loola gol leeyahay ganacsato iyo saraakiil ku xidhan madaxweyne Putin. cabdixaafid aad buu mahadsan yahay. waxaa inoo soo socda war ku saabsan dalka ruwanda oo laga bilaabay 7 baroor diiqa oo lagu xusayay xasuuqii dalkaasi ka dhacay sanadkii 1994, balse haatan jamhuuriyadda afrikada dhexe. ugu yaraan 100 qof ayaa lagu dilay dagaalo ka dhacay jamhuuriyadda afrikada dhexe maalin kadib markii la saxiixay xabad joojin u dhexaysa mucaaradka iyo dowladda. axmed beder ayaa warkaas soo jeedinaya.
ciidamada nabadilaalinta qaramada midoobay iyo kooxdani hubaysan ayaa risaas isweydaarsaday xilli habeena. Israsaasaynta ayaa ka dhacday meel u dhow goobta uu ka degan yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe caasimada dalkaasi, sida ilo wareedyo dhanka ammaanka ay u sheegeen wakaaladda wararka AFP. arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa saacado un kadib markii la dilay ugu yaraan 2 qof. waxaa sidoo kale isku dhacyadani ku dhaawacmay ugu yaraan 11 ka tirsan ciidamada nabadilaalinta qaramada midoobay ee ku sugan Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. isku dhacyada ayaa ka dambeeyay kadib markii ciidamada qaramada midoobay iyo ciidamada Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ay bartilmaameedsadeen koox hubaysan oo intooda badan ku sugan degmada ay muslimiinta ka degan yihiin magaalada Bango, sida ila wareedyo qaramada midoobay ka tirsan ay u sheegeen wakaaladda wararka AFP. howlgalkan ayaa waxa ay ciidamada nabadilaalinta ee qaramada midoobay ay ku soo qabteen 8 ka tirsan kooxaha hubaysan iyo risaas, sida uu sargaal qaramada midoobay sheegay. Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa waxaa ka jiray xasilooni darri tan iyo markii maleeshiyaadka muslimiinta ah ee loo yaqaano Saleka ay xukunka ka tuureen dowladdii dalkaasi 2013. waxa ay awoodda ku wareejiyeen dowlad ku meel gaara 2015 iyadoo dalkaasi uu lugaha la sii galay dagaalo ku salaysan diin iyo qowmiyado. mahadsanid Axmed Badar. dhegaysi ayaa ka bilowday maxkamad ku taala Mbale ee bariga Uganda oo looga doodayo isbeddelka dastuuriga ah ee lagu xadidayo da'da madaxweynaha ee sanadkii tegay. isbeddelkaasi lagu sameeyey arrintaasi ayaa waxa ay dhalisay in meesha laga saaro labada aqal ee kan hoose iyo kan sare in la xadido qof kasta oo u tartamaya madaxtinimada. Bashiensi Atuhara ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Kampala. waxaa soo jeedinaya Cabdirasaaq Catoosh. waxaan sameeyey dadaal aad u badan inaan dhex qaado qaybo kala duwan ee deegaankii hore ee Giti oo ku taala waqooyiga galbeed ee waddanka Rwanda. waa gobolka keliya oo aanan wax rabshad ahaanan ka dhicin xasuuqii iyo dagaaladii sokeeye ee 1994 marka loo eego deegaanada kale ee waddankani Rwanda. run ahaantii dagaalada RPF ee 1990kii oo ka horreeyey xasuuqa waxaa la ii xiray eedeymo ah in aan ahay jaajuus RPF u shaqeeya, balse waxaan kuu xaqiijinayaa in xilligii dagaaladii sokeeye iyo xasuuqa dalka ka dhacay sannadkii 1994 dadweynaha halkan waxay iska caawinayaan xagga ilaalada. dadka huutuuga ee gobolkani badankooda waxay ahaayeen dad wanaagsan, inkastoo 100% aysan ahayn, mana lahayn wax qorshe ah oo dil loogu geysanayo dadka Tuutsiga ah. aniga hadda kula hadlaya qoyskayga oo idil ma jirto qof waxyeello ay soo gaartay. dadka ka soo jeeda qowmiyadda Huutsiga waxay aad u ammaanayaan hogaamiyaha waagaa hogaaminayay dadka Tuutsiyiinta ah maadaama uu ka soo horjeeday barbagandada ku dhisan nacaybka iyo dagaalada. sidii uu saaxiibkay kuu sheegay, dadka doonaya xumaha ma aysan helin fursad ay ku faafiyaan been abuurkooda. waxaan aad u xasuustaa hogaamiyihii hore ee deegaankani Bwana Siboshumba waxa uu sheegay in uusan marna oggolaan doonin in uu nacayb ka dhex abuuro dadka gobolkan ku dhaqan. dhowr jeer ayaa waxaana loo adeegsaday dagaalyahanada Intramwe in ay halkan dilal ka geystaan, balse isaga iyo ciidamadiisa ilaalada ayaa ku qasbanaaday in ay arrintan dhex galaan oo ay kala dilaan xarakadaasi. Edward Semushumba oo horay u soo ahaa hogaamiyaha degmada hadda waa nin da ah oo iscasilay. waxaan la kulmay isagoo ku guda jira howlo geeda loogu jirayo beertiisa. waxaana wax ka weydiiyey bal sirtii ka dambaysay inuu deegaankaasi wax saamayn ahanan ku yeelan dagaaladii iyo xasuuqii dalka ka dhacay. waxaa keliya ay caawiyey waa qorshe iyo dastuur kaas oo ii degsanaa marba haddii aan ahaa hogaamiyaha gobolka. waxaan gebi ahaanba ka soo horjeeday wax walba oo qalqalgelinaya ammaanka guud. waxaan dadaal dheeraad ah saaray isku keenidda bulshada. sidoo kale waxaan ahaa qof aan u dulqaadan karin dhibaataynta wax walba oo shacabka loo geysto. waxaan intaasi dheeraa waxaa xidhiir wanaagsan naga dhexeeyey aniga iyo dhammaan shaqaalahayga. waxaannu lahayn go'aanno culus. marka waxaa iska cad in shacabka ay falalka foosha xun geystaan markay garab ka helaan hogaamiyahooda. sannadii 1996
hogaamiyahaasi xilka ka fariistay waxa uu ka mid ahaa madax kale oo si xushmad ah loo guddoonsiiyey abaalmarino sababo ah inay si hufan u shaqeeyeen kana ilaaliyeen shacabkooda saamaynta dagaalada sokeeye iyo xasuuqii dalka Rwanda ka dhacay 1994. dhegeystayaal warbixintaasi waxa ay ku saabsaneed waddanka Rwanda oo markaasi isagu bilaabay toddobaad baroor diiq ah oo lagu xusayay xasuuqii dalkaasi ka dhacay sanadkii 1994 waxaana inoo soo jeedinaysay wariyaha BBC-da Kawsar Maxamed. balse haatan aan dib ugu laabano wararka Uganda. ugu yaraan 100 qof ayaa lagu dilay dagaallo ka dhacay markaasi halkaas haddii aan dib ugu laabto wararka ka imaanaya dalka Uganda ayaa waxa ay sheegayaan in dhageysi ay ka bilaabatay maxkamad ku taala Mibale oo ah bariga Uganda oo looga doodayo isbeddelka dastuuriga ah ee lagu xadiday da'da madaxweynaha. waxaa markaasi warbixintan ka soo diray Kampala Patience Autere waxaana soo jeedinaya Cabdirasaaq Catosh. dacwadan iyada ah dhageysigeeda ayaa waxa ay noqonaysaa tii ugu horreysay oo dastuurka ku saabsan oo lagu qabto meel ka baxsan caasimadda Kampala, waana sababta looga soo wareejiyey magaalada Kampala ee dacwadan ay uga dhacayso magaalada Mbali. dacwadda waxaa soo jeediyey oo oogay ururka qareennada Uganda, xubno baarlamaanka ka tirsan iyo bulshada rayidka, waxayna ku eedaynayaan qodobka dastuurkaasi laga beddelay inuu khalad yahay, qodobkaasoo ah muddada xilka uu haynayo madaxweynaha dalka. waxa kaloo ay sheegayaan in qaabkii loo meelmariyey markii qodobkaasi la ansixinayay ay ahayd mid la siyaasadeeyey. bishii Diseembar ayaa qodobkaasi la meelmariyey. berigaasna waxaa lagu eedeeyey baarlamaanka inay galeen rag ammaanka u shaqeeya oo dharcad ah, kuwaasoo bannaanka u soo bixiyey xubno baarlamaanka ka tirsan. dadka dacwaddan wada sidoo kale waxay eedaynayaan qodobka ku saabsan muddada baarlamaanka uu jirayo. dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Uganda ayaa waxa ay sheegayaan in meelmarinta la meelmariyey in madaxweyne Yoweri Museveni uu mar kale isa soo sharrixi karo ay la micno tahay inuu weligiis hayn karo xilka dalkaasi, isagoo hadda joogay 5 doorasho oo isku xigta. qolkii lagu dhagaysanayay dacwaddani waxaa buuxiyey xildhibaanno iyo xubno dadweynaha ka tirsan iyo weliba ururada bulshada rayidka ah. booliska ayaa sidoo kale magaalada dacwaddan ay ka dhacaysay Mbali la soo dhoobay waddooyinka, waxaana la xiray jidka gala maxkamadda. dadkuna dacwadda waxay ka dhagaysanayeen bannaanka qolka ay maxkamaddu ka socotay. Cabdirasaaq Catosh aad buu mahadsan yahay. xafiiska waxbarashada ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa uu leeyahay qaybta anshaxa ee ka hortagga dhaqan xumida. Farxiye Cabdullaahi Khaliif ayaa waxa ay uga warantay wariyaha BBC-da Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam umuurtaasi. xafiiskanaga qaybtan anshaxa iyo midgaha qaranka wuxuu ku howlan yahay sidii uga wacyigelin lahaa dhaqamada xunxun ee ragaaday ee soo jireenka ahaa iyo dhaqamada ee dhalinyarteena ay ku sifoobeen ee dhan walba leh. qaybtaas ayaa sii dardargelisay anshixii iyo natiijadii ardaydu ay keeni lahaayeenba. maxaad ka shaqaysaan marka? ma talaada bixisaan? ma waxaad leedihiin guddi kormeer ah oo maadaama deegaankuna aad u ballaaran yahay anshaxa seed ku kantarooshaan? runtii waxaan sameynaa wacyigelin ballaaran annagoo adeegsanayna dhammaan guddiga waalidiinta ama PTA-ga loo yaqaano ee dugsiyada deegaanka, macallimiinta iyo maamulayaasha madaxafiseedada. si ballaaran ayay uga wacyigeliyaan sidii ay natiijo uga keeni lahaayeen waxbarashada deegaankeenna ee xawliga ku socota. bal hadda waxyaabaha ugu badan ee idinla soo gudboonaaday ee anshax darrada lagu tilmaami karo ee muuqda maxaa ka mid ah? runtii waxa weeyaan ardaydii oo dharkii u tolanaysay si dhaqamadii shisheeyaha oo kale timihii u jaranaysay, waxyaalahaasoo dhan ayaan ka howlgallay. waxyaaba arrintaas ka weyn soo ma jiraan? runtii waa iskan dulsaarnimada dadka la dul saaran yahay oo kale, sidii ay ardaydu ay u noqon lahaayeen kuwo gacan. sidee oo kale dulsaarnimadka sidoo kale? macnihii waxbarasho la'aanta dadka guryaha intay iska joogaan xoolo ayna lahayn, reerka ku tiirsan oo iska cunaya oo kale inay ka baxaan dhalinyarteenna isla markaana waxbarasho ay kaga baxaan. taasoo kale waan ka wacyigelinay gabdhaha oo guurka markay guursadaan gaab ku imaado waxbarashadooda, oon iyagana ka wacyigelinay hooyo iyadoo ah inay waxbarashadii ayna caqabad ku noqonin guurkii, isla markaana ay sii dardargeliso iyadoo hooyo ah oo dhalaysa oo haddana ay waxbaran karto ayaan ku dhiirigelinay. natiijana waan ka keennay hawshaas iyada ah. kiraabi waxaa jira u ololeeya gabdhuhu inayna si degdeg u guursanin kuwaas. runtii taas waa mid xafiiska waxbarashada uu barnaamijkani soo qabanqaabiyey. kalaabiyadana waxay ka samaysan yihiin deegaanka dugsiyadiisa si
ballaaran ayayna uga shaqeeyaan wacyigelinta la siiyana waxaa weeyaan inayna gabdhaha ku degdegin guurka oo ay waxbarashadooda heer ka gaaraan guurka degdega ah inuusan lahayn wax faa'iido ah iyo wax natiijo ah gabadh wax baratay waa bulsho wax baratay isla markaana gabadhu markay isku filaansho gaadho ayay ummadda iyo ilmaheedaba wax u tari kartaa farxiya waxaan maqlay in xilli lagu doortay qoyska ugu tayada badan waxbarashada xaggeeda oo lagu ammaanay arrintaas bal arrintaas ma jirtaa haa way jirtaa sababtay tahay anaga hadda tusaale ahaan ana hooyo ah ayaan waxbarashadii weli sii wadaa oon rabaa inaan natiijo ka gaadho ilaa hadda master baan wadaa digriigiina waan qaatay gabadhayda sidaasi la eg waxay dhigataa waxbarashadii digriiga waana macalimad iyadii laftayda jidkaygii ayay martay oo waa macalimad iyaduna digriigiina way wadaa odayayga oo kale ilaa iyo master ayuu ka qaatay caruurtaydu markaa gabadhayda kalena waxbarashadii dugsiga ayay hoose ayay ku jirtaa marka sababtaasaa laydinku qiimeeyey miya maadaama aan nahay qoys dhammaantiisba bah waxbarasho ah sababtaas ayaan qiimeyntaas ku helnay hooyadu ma aha mid guurka keliya ku ekaata laakiin waa inay noqoto mid iyadoo xitaa guursatay oo maamo ah in ay wadi karto taasi waxay ahayd farxiye cabdulaahi khaliifa u warramaysay cabdinaasir xikam markana waa ciyaarihii iyo sboortiskii iyo cabdirasaaq waa tahay aan ku bilownaa cayaaraha ka dhacaya xeebta dahabka ee australia gold coast waa cayaaraha barwaaqa sooranka commonwealthka wadamo fara badan ayaa isugu yimi wadaagi jiray waxaa ka dhexeeyana ay yihiin dalkan britain ayaa markii hore gumaysan jiray cayaaraha haddaba biladihii sidii loo soo kala qaatay aan eegno kuwa ugu badan waxaa helay waddankaasi australia cayaarihii weli waa socdaan 30 dahaba 20 silvara iyo 30 qalina ingiriisku waxaa heleen 62 ay dahab yihiin indiya ayaa ku xigtay oo waxay heshay 9 dahaba oo keliya biladaheeda marka la isu geeyana waxa ay noqdeen 18 canada waxay heleen 7 dahaba marka la isu geeyo biladahoodana waxa ay noqdeen 35 new zealand baa ku xigtay oo heshay 7 dahaba marka la isu wada geeyo 22 biladood gobolka scotland oo مثلا Scotland iyo Wales iyo waqooyiga Ireland iyo Jazaa'ir kale oo Britain ka tirsan ayaa daldal u ciyaara marka ciyaaraha Commonwealth ay jireen New Zealand markaasi waxa ay 7 dahaba iyo 22 biladood Scotland oo gobola waxa ay heleen 6 dahaba iyo 25 biladood Koonfur Afrika waxa ay heleen 6 biladood dahaba marka la isu wada geeyay 15 Wales waxa ay heleen 5 biladood dahaba marka la isu wada geeyay 15 قبرص waxa ay yana heleen 4 dahaba marka la isu wada geeyay 6 wadamada afrikaanka marka laga soo reebo koonfur afrika 3 dal oo kale ayaa bilado xooga ay helay Uganda waa 12 waxa heleen 2 biladood dahaba biladooduna waxa ay ahaan 3 Kenya ku xigtay waxa ay ku jiraan 18 waxa ay heleen 3 biladood oo midna aanu dahab ahayn Nigeria oo dalweyna oo wax weyn laga filayay iyaguna bilad kaliya ay ilaa hadda gacanta ku hayaan Nigeria iyagu waxa la sheegay in ay iminka badiyeen ciyaarta tenniska table tenniska la yiraahdo waxa ay la ciyaareen Ingiriiska ciyaaraha ka soconaya waddankaasi Australia ee Commonwealthka in lagu magacaabo Bodi Abiodun ayaa waxa uu ka adkaaday Samuel Walker oo Ingiriisa ciyaartaasi lagu magacaabo table tenniska oo 3 iyo 2 uu kaga badiyay taasaa markaa keentay in aad iyo aad ay u damaashaadaan kooxda dalkaasi Nigeria haddii aan u leexano dhinaca gawaarida dheeraysa ee lagu magacaabo Formula 1 waxa ay ka dhacaysay wax lagu tilmaamay dagaal magaalada Bahrain dalka Bahrain waxaana la sheegay in la eegayo bal nimanka ku tartamaya Vettel oo aanin Jarmala iyo Lewis Hamilton oo isaguna Ingiriisa mid waliba 4 jeer hore ay soo badiyay keeba markaasi 5 jeer qaadan doona biladahaas oo muddo dheer socon doona ciyaarta u dambeysana ay ka dhici doonto Abu Dhabi dagaalka Bahrain ee tartanku ka dhacay waxa inoo haya bidhaan Xaaji Daahir
darawalka mercedes benz lewis hamilton ayaa waxa uu ku bilaabay iyadoo la aaminsanaa inuu noqon doono ka adkaada sebastian vettel oo isagu ah ninka isna darawalka u ah sharikadda ferrari ee talyaaniga. laakiinse iminka vettel ayaa waxa uu horreeyaa 17 dhibcood kadib markii uu 2 jeer oo isku xigta si weyn u guulaystay. vettel waxa uu ku guulaystay tartankii ka dhacay baxrayn maalintii axaddii shalay toole isagoo kaga dheereeyey sida ugaga horreeya tartanka gawaadhida ee halkaasi laysu babac dhigay kadib markii garoonkaasi uu noqday mid labada nin ee labaduba ah darawalinta culus ee caalamku aanay waxba isula hadhin. hamilton ayaa haddaba waxa uu ahaa isagu nin ku faraxsan in siday doontaba ha u dhacday markii dambe uu galo kaalinta 3aad oo uu soo istaago membarka. haddii aanu kaalintaa gelin waxay noqon lahayd in sawirkiisuba meesha ka maqnaado. waxaana uu la kulmay caqabado badan intii uu socday tartankaasi isagoo axaddii ka dhacayay dalkaasi baxrayn, waxaana ka mid ahayd iyagoo isku dhacay gaadhiga kale ee sharikadda red bull oo waday max verstappen, taasi oo iyadana ku keentay khalkhal. laakiinse waxa ay tani noqotay guushii 49aad ee sebastian vettel uu soo hooyo intii ku jiray tartanka gawaadhida dheeraysa ee formula 1, waxaana ay muujinaysaa sida uu ninkaas u yahay darawal gacantiisu fadhido islamarkaasina xamili kara cadaadiska iyo markay noqoto welbahaarka ay leedahay darawalnimadaasi xawaaraha aad u sarreeya gawaadhida loogu kaxaynayo garoommada tartanka gawaadhida ee formula 1. cayaaro fara badan oo premiershipka ay toddobaadkan dhacay sabtidii iyo axaddiiba. cayaaraha indhaha lagu hayay waxaa ka mid ahaa arsenal oo la ciyaartay southampton. labada kooxood waxaa isku dhaliyeen 5 gool, waxaana aad moodaa markaasi cayaartu qaybtii hore inay ahayd mid adag oo aad moodayso inaanay kala baxaynin, inkasta oo arsenal markii dambe ay gool ku badiyeen oo ay noqotay 2-3. tababaraha markaasi tiimka southampton ayaa canaan soo jeediyey markii cayaaruhu ay dhammaadeen oo sheegay inay heli lahaayeen penalty ama rigoore oo uu leeyahay waana loo diiday, laakiin ka soo noqosho ma laha. labada gool ee arsenal ay dhaliyeen waxaa dhaliyey Danny Welbeck oo dhaawac ka soo kabtay baryahan. Rolled forward first time into the feet of Iwobi by Xhaka, and now Danny Welbeck into the penalty area, right foot, it takes the deflection and flies into the net. tababaraha tiimka Arsenal Arsene Wenger ayaa waxa uu markaasi ka hadlay dhibaatada soo gaadhay Welbeck, sheekadiisiina waa tan. I think I'll repeat it many times that I like Danny Welbeck, and I'm very pleased for him because this guy went through some very difficult time and has shown exceptional mental strength, and I'm so happy that he can play game after game now. waa tababaraha Wenger ee Arsenal. waxa uu sheegay inuu aad iyo aad u sacbinayo Danny Welbeck oo uu sheegay cayaar aad iyo aad u fiican inuu keenay 2 gool oo ay kaga badiyeen tiimka Southampton uu la yimi buudi. waxa uu sheegay in ay markaa noqonayso Southampton la fahanteedu inay hoos u sii degayaan oo laga yaabo inay premiershipka ba ay ka baxaan cayaartii ka dhacday Emirateska. Welbeck bishii September ee soo dhaaftay ee kala hore ayaa ugu dambeysay mar uu gool dhaliyo. Arsene Wenger waxa uu yidhi waa nin aad iyo aad u kulkulul oo dhaawac weyn ka soo baxay. Wenger waxa uu sheegay dhaawacyada gaadhay Welbeck inay ka mid ahaayeen isaga oo 2 ruugba laga qalay oo aad moodaysay sanad ku dhowaad inuu ka maqnaa cayaaraha. dad badan ay aaminsanaanba inaanu ku soo laaban doonin. cayaaraha kale aad u xiiso leh waxa ay ahaayeen Manchester United iyo Manchester City oo wada ciyaaray. Manchester City aad iyo aad bay uga horeeyeen tiimamka kale oo dhan. waynu ognahay dhowaan waa laga badiyey markii Liverpool ay isugu yimaadeen koobka Yurub. Manchester United markii cayaartu ay bilaabantay waxaa loo arkayay inay meesha iska yimaadeenuuna aanay kaba badin karin Manchester City. 2 gool baa lagu dhaliyey qaybtii hore ee cayaarta, laakiin Manchester United 3 gool ayay ka daba keeneen. 2 gool ahaan waxaa dhaliyey Pogba, goolashiisina waxaa ka mid ahaa. Pogba can score. Pogba has scored. And ridiculously, Manchester United are back in it. Played in towards Pogba. Pogba heads the equaliser. This is unbelievable. Played in Dick Smalling. Oh, it's 3-2. waa tahay haddaba saasay ku badiyeen Manchester United. dad badan ayaa aaminsanaa inaan la filaynin in ay heer fiican gaadhaan. tababaraha Guardiola ee tiimka Manchester City ayaad moodaysa in aad looga naxsaday isaga oo aan runtii u baran baryahan in laga badiyo. cayaartii hore ee ay kaga badiyeen Liverpool haddaad tanuna u raacdo waxa ay noqonaysaa
arrin la yaab leh markaa waxa uu ka jawaabay siduu u arko guuldarradii ku dhacday Man City. We tried and we could not win, okay? So it's hopefully will not be too much damage until, the next Tuesday, but we have to stand up and heads up. And waa tahay waxa uu yidhi waan dadaalay waan isku daynay inaannu guulaysanno waxa uu yidhi laakiin halkii aanu doonaynay rajo ahaan maanaan gaadhin laakiin waxa aan rajaynayaa dhaawac inaanuna gaadhin buu yidhi waxyeeleeya cayaarta salaasada aanu la ciyaari doonno Liverpool dhulkaan u dhacnay buu yidhi laakiin waannu ka kici doonnaa cayaaraha markaasi dhinaca Yurub ee dhici doona ee horyaalka Yurub waxaa berrito wada ciyaaraya Manchester City iyo Liverpool waxaa ciyaaraya oo kale Roma iyo Barcelona marka waxaa loo arkaa ciyaarta Man City iyo Liverpool in ay ku noqon doonto Manchester City mid adag laakiin Barcelona ayaa la leeyahay Roma way jeeri kartaa arbacadana waxaa ciyaaraya Bayern Munchen oo la ciyaaraysa Sevilla Bayern Munchen ay aad uga xoog roon ciyaarta kale waxa ay tahay ee aad xiisaha u lihi Real Madrid iyo Juventus haddii aynu u leexano ciyaaraha Premiershipka ee dhacay Sabtidii iyo Axaddii bilowna Everton waxay la ciyaartay Liverpool waa laba tiim oo magaalo ka wada yimaada waxa ay noqotay eber inkasta oo Liverpool ay rajaynaysay inay dhibco 3 halka kala timaado tiimka lagu magacaabo Bournemouth waxa ay dhaliyeen 2 waxay la ciyaarayeen tiimka Crystal Palace Brighton waxay la ciyaartay Huddersfield oo iyaduna u baahan dhibco 1-1 bay noqotay Leicester oo la filayay inay ka badiso Newcastle oo gurigeedana lagu ciyaarayay 1-2 ayay ku badisay Newcastle Stoke City oo siiba socota Tottenham ayaa kaga badisay garoonkooda 1-2 Watford si lama filaana Burnley ayaa uga badisay 1-2 iyadoo lagu ciyaarayo garoonka Watford West Bromwich Albion iyo Swansea waxa ay keeneen barbaro Manchester City iyo Man United sida aynu sheegnay 2-3 ay Manchester United kaga badiyeen garoonka Etihad ee ay leedahay Manchester City ciyaaraha kale xiisaha lahaa ee dhacay Axaddii waxa kamid ahaa Arsenal oo 2-3 kaga badisay tiimka Southampton Chelsea oo la filayay inay ka adkaato tiimka West Ham iyaguna guuldarra ka raacday maadaama 1-1 ay noqotay oo la filayay in ay ciyaarta ka fiican ay keenaan haddii aan u leexano dhinaca tiimamka Yurub ee waaweyn iyo halkay marayaan tiimka Isbaanishka aan ku bilowno tiimka Barcelona waxa ay leeyihiin 79 dhibcood Atletico Madrid waxa ay la ciyaaraysay Real Madrid 1-1 ayay keeneen goolkana waxa ku horeysay tiimka Real Madrid kalabaad waxa ku jira Atletico Madrid Valencia ku xigta Real Madrid oo aad moodo baryahan si xun inay u ciyaaraysay afraad baabay ku jiraan laakiin koobka Yurub meelo fiican ayaa loo arkaa inay geli doonaan Jarmalka haddii aan u leexano Bayern Munchen waabay sii fogaato waxa ay leedahay 72 dhibcood waxa ku xiga tiimka lagu magacaabo Schalke waxa ay leeyihiin 52 Borussia Dortmund 48 Leipzigna waxa ay leedahay 46 haddii aynu u leexano dhinaca Faransiiska waxaa iyagana ugu horeeya Paris Saint-Germain waxa ay leeyihiin 84 dhibcood Monaco waxa ay leedahay 70 Lyon waxa ay leedahay 63 Marseille waxa ay leedahay 63 oo waa barbaro haddii aynu u leexano dhinaca Talyaaniga Juventus ayaa ka horeysa Napoli imika Juventus waxa ay leedahay 81 Napoli waxa ay leedahay 77 Lazio waxa ay leedahay 60 oo ay barbar yihiin tiimka magaalada Rome ee iyaguna 60 Lazio iyo Roma labaduba magaalay ka wada yimaadaan haddii aynu eegno koobka lagu magacaabo Confederation ee Afrika ayaa guur waxaa keenay Ghana waxaana la sheegay in ay badiyeen ciyaarahaasi Al Hilal lafteeda oo iyaguna tiim kale oo reer Suudaan ayaa iyaguna badiyay laakiin tiimkaasi Atwana Stars Ghana 6-1 ayay ku badiyeen waxa inoo haya Cusmaan naadiga Adwana Stars ee Ghana ayaa ka gudbay gruubkooda ciyaaraha koobka Afrika kadib markii 6-1 ay ku tumeen naadiga Fosa ee Madagascar lugtii ugu horeysay waa markii ugu horeysay sanadkan ay Fosa ka qayb galaan tartanka Adwana waxay heleen 3 rigoore oo ay ka faa'iideysteen
ciyaaraha kale ee dhacay axaddii aad ayaa laysugu dhowaa naadiga maali ee dojoliba ayaa ku guulaystay ciyaar aanan gurigooda ka dhicin iyagoo ka adkaaday kooxda MFM ee Nigeria. lugta labaad ee ciyaaraha ayaa bilaaban doonta 17 iyo 18 Abriil. 16 koox ee soo baxda ayaana loo qaybin doonaa 4 qaybood. waxa uu kaasoo Cismaan Xasan oo inooga waramayay tiimka lagu magacaabo Adwana Stars ee wadankaasi Ghana oo la sheegay koobka Confederationka lagu magacaabo in ay heleen 6 gool iyo 1 ay ku badiyeen waxaana la sheegay markii axadda ay ciyaareen inay markaasi gudbi doonaan sida Al Hilal oo iyaguna Suudaan la leeyahay waxa ay iyaguna guul keeneen hadhowto meel fiican ay gali karaan. mahadsanid cabdirasaaq xaaji maxamed siraad ayuu ahaa wararkii sportiska ee toddobaadka ayuuna la socodsiinayay guud ahaan barnaamijkeeni dunida iyo maanta oo isku soo dubriday maxamed maxamuud cadde anigoo aadan saalamiin aan idiin soo jeedinayo warkana uu noo akhrinayay cabdixaafid cawil ismaaciil tan iyo kulanti dambe anagoo isku duuban waxaan idinkaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.